soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada channelkayga African Culture. Waxaan rabaa inaan reaction ka sameeyo videogan wiilkan youtuberka oo Bodhar la yiraahdo. Wuxuu ka hadlayaa gabdhaha Soomaaliyeed oo ajnabiga guursada. Bal wax yar ila dhageysta ku leeyahay. ma yaabtay markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi ma qosashiiyo mayso maada yaab arkayba maadaaba yaab arkayba waa gabadh Soomaaliyeed oo jalango la oran jiray yaa oo midabkii masciideedka leh laakiin waaxid aanu kala garan waayay ma Jamaican ba ma Guinea Bissau ba ma Guinea Conakry ba ma Mali ba ma Burkina Faso ma Tanzania ba whatever inuu haduu dooro Kenyaati yahay ilaa sidii wuxuu yiri in laga baxay waxa lagu garan waayay sida Abdullah Xasan yam iyo qadaadooyin baa laga taglay warhaatan yam tii qadaadooyin waa loo oran jiray dadku inta badan waxaan marayaa dhalinyarada yam tii qadaadooyin dadku bay ka maqlaan yam to waxa loo oran jiray qoladan gafarnoo saabaatay Kenya iyo Tanzania iyo garasha Ingiriisku gumaysan jiray ayaa sayidku yam u bixiyay qadaadooyin kale waxa loo oran jiray niman singa oo hindiyo duub weyn xirta oo hindiyada laga keeni jiray oo awta camel court loo jiray saari jiray ayaa sayidku qadaadooyin u bixiyay marka Ingiriis iyo Talyaani baa naasaha ka garaacay buu leeyahay sayid Abdullah Xasan inaan laga baxay oo aan sidii hore ahayn waxaan ugu garan waayay yam iyo qadaadooyin baa laga taglay oo inaan rogmanay waxa lagu garan waayay dalkii iyo dumarkii baa la weeraraya dalkii iyo dumarkii cadaawaha laga hortaagnaa intii cadaawaha laga hortaagnaa baa maanta cadawgu weeraraya bal gabadha ila daawada iyo ninkaas say ugu suuroonayso ma qiimaheedu garanaya yaa ma arweeladu celin kara ma suuraheedu fahmi kara ma qiimaheedu garan kara wuxuu do you love me we didn't I love you we got it because we love you maraha waa ku jeclahay sababtoo ah ay jecel waa give and take waa business naguna ole kalo qonta la fiha halkay timu gaare goorsa ku maxaa shaqeynaysa uma soo badaacinaysa naama ewa ku heesaya iban qaar ka qaadiyo la qoran balina dhigist. Why do you love me? I love you because the love that you give to me, I've never received that kind of love before. I've never received that kind of love even from my own family. So the love that you gave me was something totally new to me. So that is why I love you. Subaday wuxuu taagay dhikari war maxaa ii jecesha batir why do you love me maxaa ii jecesha because I love you because you love me waa ku jeclahay sababtoo adiga ay jecel oo xasuusta jacayl kulaha aniga aabaha iyo waxa reerkay oo dhan aan isiin ilma fuufu jacayl aan isiin baa sisabulay marka haddaan xoogaa ka hadalno wiilkan wuxuu leeyahay horta wuxuu sheegayaa wuxuu yidhi halkan loogu caddaynaya in nimanka Soomaaliyeed nima fiican yihiin kuwan ajnabigana ay dad xun yihiin horta marka ugu horeysa ragga Soomaaliyeed oo waxa weeye wadankiini gabadha dumarka wax u baahan tahay wadan ay degto ku noolaato wadankii idinku aad lahaydeen dab baa ku shideen dumar Soomaaliyeed dab kuma shidin idinkiiba islaayay oo iscunay yaa oo midba midka kale oo nafta u qoonsada yaa idinkoo qabiil isticmaalay ama wax kale isticmaalay baad islayseen dalkiina waa gubteen midtaas weeye tan labaadna waxa weeye mas'uuliyadii rabbi idin saaray oo ahayd inaad muxuu haytid gabadhan qoodkeeda iyo ka warqabkeeda iyo reerkan xanaaneyntiisa aad qaadaanna waad gabteen waxa weeyaan 50% aan iraahdo dadka in la is saaro dhan ma fiicna laakiin 50% ragga Soomaaliyeed wax la guursan kara ma aha maxay taas ku dhacday sababtay ku tahay ma baraba inuu shaqaysto wadankii hadii la joogo waagi hore oo awooyaasha iyo maaragtay abayaasha iyo laga yaabay siba awooyaashiiba iska dheh dad reer miyi oo waxay iska xoolahooda haysto haday reer gabar guursanayaan intay xoolo aruursadaan
oo maaragtay bay maaragtay xoolahaas ay ku dhaqan jireen oo ku xanaanaysan jireen oo reerkooda maaragtay ay ku haysan jireen dhaqan fiicanna waa lahaayeen awoowayaasha iyo aabayaasha iyo ilaa siyaad barra wixii xagga siyaad barra xagga laftigooda way xumaadeen rag badan baa xumaaday oo gabdhahaas xun u geli jiray marka laakiin dhaqankii hore oo soomaalida aan ku noqono xilligii sayidku joogay baan idhaahno waxa weeye xilligaas oo kaleeto waxa weeye dee ninku si fiican wixii ka horreeyay si fiican bay dumarku ula dhaqmi jireen rag oo mas-uul bay ahaayeen mas-uul waxay ahaayeen waxay cunayso waxay cabayso inay maxay ka warqabka reerkan xanaanada carruurta maaragtay tarbiyada carruurta inay ka warqabeen maanta waxaas intaas oo dhan waa gabeen marka hadda waayadan dambe gabdhuhu waxay ku guursan jireen ragga Soomaaliyeed muxuu ahay tadiito warbal waxaan wax dhalo kan 2 carruur iyo 3 carruur iyo 4 carruur xoogaa dhowr carruur aan ka dhalo bay ku guursanayeen marka horta waxaan ka hadlayaa inta roon ka hadlimaye kontonka ah niraana konton waxbaan kala reebanaynaa laakiin waxaan ka hadlayaa kontonka aan maaragtay nafta lahayn muxuu ahay tadiito mashaqaystayaasha meelaha Yurubna fadhi ku dirarka meelaha iska fadhiya dumarkoodii yiri maxay tahay ordo cayr qaado cayrta ku nool gaalku ha ku biilo oo meesha fadeexad walba iyo wixii iskula dhaqmi jireen iyo wixii dhihi jireen ordo ima qaba indhaha iyo waxaas oo dhan ay banaanka soo baxday maxaan ku iraadayay tadiito marka waxaas gabdhaha waxaa ku kalifay inay dad kale ajnabi ay guursadaan muxuu ahay waxa weeyaan waxa weeyaan raggii Soomaaliyeed oo gabay maaragtay waajibkii laga rabay taasi waa mid tan kaleeto dee hadda ragga Soomaaliyeedba waa guursadaan gabdhaha ajnabiga ah maxaad gabdhaha u daba joogtaan oo u haysataan mideeda kaleeto abuurta Ilaahay waxa weeye dadkan Afrikaan baynu isla nahay aniga intay qolo kale guursan lahayn gabdhaha Soomaaliyeed hadday Afrika guursadaan nimanka ragga Afrikaanka guursadaan waaba gabdho wanaagsan oo qaaladoodii bay ku soo noqdeen macnaha jareerkan oo Soomaaliya joogana ama wiilkan reer Bantuuga Soomaali Bantuugana hadda idinka u diiday oo gabadhu markay guursato gabdhuhu maba diideen waxa weeyaan tii guursatay oo Muqdisho ku guursatay hadda idinka adeerkeed aakhira wiilka adeerkiisa aakhira u diray oo cambaarayn iyo dil iyo dhibaato iyo faaxish iyo ilaa dil baaba ka yimid anigu waxaan u arkaa wiilasha Soomaalida ayo Soomaali Bantuuga inay mudan yihiin in la guursado intaan Kenya iyo waxa la aaday Kenya iyo wadamada kale la aaday laakiin gabadha horta iyada khiyaar leh ciday guursanaysan iyada u taala muhiimadu waxa weeye qofkaas inuu muslim yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh